qodobka afraad oo halka ku saabsan seebaan ugu sameyn karnaa dugsiyada quraanka fasaxyo waxa weeye in dugsiga quraanka loo sameeyo calendar ama in loo kala qaybiyo sanadkii dhowr teeram in loo kala qaybiyo sida iskuulada aad ka warhaysaan waxay leeyihiin teeramyo teeramkan xilligaas uu bilowdaa xilligaas uu dhamaada imtixaana la galaa kadib baa fasax la galaa ardada ayagoo xiisaysan bay dugsiga aan dhahay iskuulka marka ay u soo noqdaan dugsi quraanka calendar in loo sameeyo ma suuragalba nacam suuragal weeye seeba loogu sameyn karaa halkan waxaan ku soo jeedin doonaa biidnillah calendar ama muqtarax soo jeedin ah oo u soo jeedinaya macallimiinta iyo dugsiyada adinku markaas wixii munaasib idinka ah ka qaata waxaad rabtaan ku darsada waxaad rabtaanna ka dhima waxaan loo kala qaybinayaa sanadkii sida iskuulada inta badan ba ay yihiin laba teeram ayaa loo kala qaybinayaa awalan horta waxaan soo jeedinaynaa in ay haboon tahay ama ay fiican tahay in kalandarka ay dugsiyada quraanka ku shaqeynayaan uu noqdo kalandarka hijriga ah ama taariikhda hijriga ah inuu noqdo taariikhda hijriga ah waxa weeye waxa ku tacalluqo qofka muslimka cibaadaadkiisa oo dhan waxa la fasaxayaa ramadaanka waxa la fasaxayaa yawm at-taasi' dhil-hijja iyo maaragtay maalmihii ka dambeeyay ciidi ayaa la fasaxayaa marka acmaal badan baa ku tacalluqdo waa taariikhdii muslimiinta dhinaca kale marka laga eego caruurtu waxay baranayaan taariikhda hijriga ah magacyada bilaha hijriga ah tacalluq bay la yeelanayaan way baranayaan marka qofka muslimka ah inuu taariikhul hijriga uu ilaawo wax badan ayaa naga lumay oo waxyaabaha naga lumay ummad ahaan bay ka mid tahay marka dugsiyadu inay qaataan taariikhda hijriga طبعا dugsiyada ku yaalo wadamada gaalada ama wadamada aan islaamka ahayn wadamada dibadda ku yaalo waxa laga yaabaa qaar badan oo kamid inay ku adkaato kalendarka islaamiga inay qaataan maxay yeelay fasaxyadii magaalada iyo uu degan yahay ama dalka uu ku nool yahay ayaa waxay ku saleysan yihiin taariikhda miilaadiga marka waxay u baahanayaan marar badan inay ku saleeyaan fasaxyada miilaadiga ah iyo kalendarka miilaadiga haday iswaafajin karaana ayadana waa wax wanaagsan weey marka seeba loogu sameyn karaa calendar sida shaashadaba aad ka arki doontaan haduu ilaahay yiraahdo waxa loo kala qaybinayaa laba teeram ayaa loo kala qaybinayaa sanadkii taariikhda hijriga ayaan ku socon doonaa taariikhda hijriga muharram bay ka bilaabataa bisha muharram teeramka koobaad wuxuu ka kooban yahay 5 bilood waa muharram iyo safar iyo rabiul awwal iyo rabiul thani iyo jamaadul awwal 5 bilood waa diraaso weeye ardaydii wax bay dhiganayaan group walbo meel ay gaarayaan iyo manhaj ma loo sameyn karaa xalqada soo socota ayaan uga sheekeyn doonaa haduu ilaahay yiraahdo waa wax fudud in manhaj loo sameeyo caruurta maxay yeelay bogo uu qaato ayaa waxa lagu dhufanayaa 5 bari ee 10ka la qaato 6 bilood baa lagu dhufan sanad baa lagu sii dhufan waxa soo baxayso sanad kadib cunuga meel uu gaari karo طبعا waxa laga jari karaa hal bil oo kale haduu cunugu xanuunsado iyo hadii fasax loo qaaday haduu maqnaado iyo loo xisaabinayo xalqada soo socota ayaan tafaasiisheeda ooga hadli doonaa haduu ilaahay yiraahdo marka 5 bilood caruurtu wax bay baranayaan bisha jumaadul aakhir markay bilaabato ilaa 15keeda muraajaca la sameeynaya ardaydii wixii ay soo barteen ayaa ay muraajaceynayaan macallin walbo ardayga mesela ardayda wuxuu soo barteen 2 juz ama ay soo barteen groupkaas intaas oo juz bay muraajaceen 3 juz ama 4 juz bay muraajaceen marka inta ay muraajaceen iyo inta ay soo barteen inta ay imtixaanka ku gali karaan buu u diyaarinaya macallin walba listu soo gudbinaya groupkan 3 bay ku gali karaan groupkan 5 juz bay marayaan laakiin 4 bay ku gali karaan waxa kada groupkan quraanka way dhameeyeen laakiin 15 juz bay ku gali karaan imtixaanka marka labada usbuuc ugu horeyso jamaadul aakhir waxa jiri doona muraajaca 15ka jamaadul aakhir ilaa 20keedana imtixaan ayaa la qaadi doona ardada dhan dugsiga laga qaadayo macallimiin kala duwan haday dugsiga dhigaan halka waxa ka dhalan doonto inay tartamaan oo macallimiintu ay u tartamaan xalqada ugu fiican inay gaaraan marka maamulku waxa laga rabaa inay takriim ama hadiyad iyo jaa'izo inay sameeyaan xalqada ugu fiicnaato ardadeedana laga farxiyo macallinkeedana laga farxiyo si loogu tartamo maxaa la yiraahdaa dhammaan dugsi xalqadaha ama dugsi macallimiinta kala duwan ee halka dugsi isla dhigto khayrka ay ku tartamaan maxaa yeelay khayrka in lagu tartamo waa wax wanaagsan waay wax xun maahan waa fi dalika falyatanafas almutanafisun bijalisa inay dadku u tanaafusaan xagga khayrka shartay dad badan ay ku tartamaan saan ka warhayn marka la gaaro 20ka bisha jamaadul aakhir xaflad baa la qabanaya waalidkii baa loo yeerayaa
marti baa loo yeeraya halkaas ardadii jaa'iso lagu guddoonsiinaya waxay galayaan fasax 10 bari ah 20ka Dhulxijja ilaa 20ka bisha Jamaad al-Aakhir ka bilaabanayo ilaa iyo bisha Rajab bilowgeeda ku eg waxaa la soo noqonayaa marka termka labaad oo asagana ka koobnaan doono Rajab iyo Shacbaan iyo Ramadaan ilaa 20ka Ramadaan waa la dhiganayaa 20ka Ramadaan markii la gaaro fasaxi Ramadaan ka la galayaa 10 al-awaakhirki ilaa iyo Shawaal afarteeda bari hore ayaa fasax lagu jiraya kadib bay ardadu soo noqonayaan ilaa 14 bari oo fasax ayaa halkaasna ku jirto sidii aan soo sheegnay shaqo iyo mahaam iyo waajibaad baa la siinayaa ay soo muraajacayaan caruurtu inta fasaxa ah si uu quraanka uga lumin marka la isku soo noqdana imtixaan baa la qaadi doonaa marka ay dhigtaan Rajab iyo Shacbaan iyo Ramadaan 20keeda Shawaal ay soo noqdaan fasaxa marka ay ka soo baxaan Shawaal waa la dhigan Dhulqicdana waa la dhigan Dhulxijja waxaa bilaaban doono oo bisha Carafa ah bilowgeeda muraajacadii baa bilaabanayso kadib fasaxii sagaalaadka yawm Carafa iyo ciidi weyneed baa soo galayo oo ardadu qaadanayaan ilaa 4 bari kadib muraajacadii baa sii soconayso 15ka bisha Dhulxijja waxaa la bilaabayaa maxaa imtixaankii termkii labaad 20ka Dhulxijjana xaflad ayaa la qabanayaa oo sanadka dhamaadkiisa ah markaas ardada hadana waxaa la siinayaa fasax ilaa 2 usbuuc ah waxay dib u soo noqon doonaan 5ta bisha Muharram ayay dib u soo noqon doonaan markii fasaxyada ay jiraan saan hore u soo sheegnay fawaa'ideeda qofka aan daawan xalqadii hore ayuu daawan karaa xalqadii ka sii horeysay oo nooga hadalnay ahmiyadda ay fasax u leeyahay waxa ka dhalan doonto sanadkoo dhanba inay ardaydu ku jiraan tartan oo fasaxa soo socdo wuu dhow yahay 1 bil baa ka dhiman 2 bil baa ka dhiman caruurtu way tirsadaan fasaxana way jecel yihiin nin maamulo ah oo saaxiibanahay oo dugsiyada quraanka maaragtay kamid ah namuudajiga ah aad iyo aad casriga u ah Nairobi maamulo ayaa maalin wuxuu nooga sheekeeyay caruur baa waxaan ku irigu yiri intaan maalin u qaadnay meel maxaa la xadiiqad ama beer ay ku soo ciyaaraan yaa waxay dhahan buu yiri goormee marka labaad beerna loo qaadi doonaa saa waxaan irigu yiri 6 bilood kadib baa la qaadi doonaa 6 bilood kadib ani marka waan iska ilaaway buu yiri 6 bilood markay 5 bari ka dhiman tahay ayay ciyaalka ii yeereen buu yiri waxay u dhahan buu yiri macallin 6 bilood oo naga ballan qaaday 5 bari baa ka dhiman oo ani waan ilaaway buu yiri macallimiintu way ilaaween qof xusuusnaa ma laha laakiin ciyaalku way tirsanayeen 5 bilood 5 bari markay ka dhiman tahay xusuusiyeen markay meel loo socdo waxa weeye caruurtii dugsigaasi waxay u dhiganayaan farxad leh fasaxyadaas ay tiigsanayaan tartankaasaa jiro wax soo saarka dugsiyada quraankana mid tayo leh ayuu noqonayaa biidnillaahi tacaala xalqada soo socota insha Allah waxaan ku qaadaa dhigi doonaa see heerar loogu sameyn karaa dugsiga quraanka 30 juz oo isku furan oo hal mustawa inuu noqonin leefallo loo kala sameeyo caruurta xitaa quraanka dhameeyay maada bacda tahfiid maxaan u haynaa wax barnaamijya xalqada soo socota ayaan insha Allah tacaala ku qaadaa dhigi doonaa heerar see loogu kala qaybin karaa iyo manhaj see loogu dejin karaa heer walbo qaybta ay baranayaan farbar laga soo bilaabo aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin daawashadiina iyo dhageysigiina إله نقدر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.